deegaanka Maarsamage ee gobolka Galgaduud oo hoostaga degmada Baxdo dhanka barina kaga beegan 28 kiiloomitir ayaa waxa laga hirgeliyay markii ugu horeysay iskuul ay dhiganayaan in ka badan 130 arday oo ka soo jeeda deegaanka. Hirgelinta iskuulkan ayaa waxa iska kaashaday dhammaan dadka ku nool magaalada Maarsamage iyadoo aysan jirin cid kale oo taageereysay. iskuulkani oo si rasmi ah loo daafuray 22 bishan Agoosto ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee dadka bulshada sida culimo diinka, hooyooyinka, odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale dhalinyarada. dadkani ayaa waxa ay dhamaantood ka hadleen baahida loo qabo waxbarashada deegaanka iyo sidoo kale duruufaha ku aadan waxbarashada oo ay jeclaan lahaayeen in laga garab siiyo. waxaan isugu nimid meeshan waxbarasho ayaan isugu nimid wuxuu yiri ilaahay hal yastawi alladheena ya'lamuuna walladheena laa ya'lamuun kuwii wax og iyo kuwii aan wax ogeyn waxba aan aqoon mas'uuliyadba la soomed ma aha weeye macnuhu marka waxa loo baahan yahay ilaahay in laga cabsado qof walba uu ku talagalo saalix inuu noqdo saalix waxa la yiraahdaa qofkii man adaa xaq Allah wa xaq al-aadam bani aadamka xaqiisa xaq al-ibaad adamada xaqooda qofkii guta حق إلهنا قتا قفك صباح لنا صالح مركب وحال ربا الله رجال كوا خير كسوكر المسينا نغنو صالحين لن نغضو وحال ربا صالح وحال قلنا كرا حق إلهي إلا قتو حق مرتي حق العبادنا اللي قتو ضمر حق ذنا اللي قتو سيدة هدي آسم يسوه قفك صوتو كذا وكود عينا إياه ووحو ليه السلام النبي علينا كركنا الله يالو وعلى عباد الله الصالحين إلهي أدومدي سلطان كركض الله يا ونبقى اليد مركا قفك ستكون أتحيا بحرية وكل دعينا هذا مرتين ليس كسوقش صالحين كسوقش مركا كل صالحين تليس كذا قال الله نقدقه وشيدان ديان كان مارس مجوحة وحبرشة هميدي ذو تاجن اللي يردي عرورتي وحبرشة زي ضياشي علوم دينكي هوانكي dhammaan waxaan iska raacsanahay taabagelinta iyo xoojinta furitaanka iskuulkan waxaan rabaa inaan baaq u diro daneeyaasha waxbarashada jaaliyadaha dadka waxbarashada ka caawiya dhammaan Maarsamage waxaa ka jirtay nolol asaasiya midii ugu hooseysay hadda ka hor waxbarasho kama jirin maanta waxaan u taaganahay inaan u dareerno furitaanka iskuulka waxaan rabnaa in la ka caawiyo ilaahay wuxuu ma jecel yahay qofku inuu walaalkiis oo meeyda uu cuno ayada macnaheedu sidaas weey ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma aqihi mayta ma jecel yahay ahadkiin walaalkiis oo meeyda inuu inta bir qaato cad ka goosto oo dabka ku rito ama hogeysto ama karsado waa maya xanku sidaas weey walaalayaal jaajuusku sidaas weeye waxyaalaha dhibaatada ay sidaas weeye kaabayaasha waxbarashada kaalmeeya waa inay ka soo qayb galaan waa inay wax ku tabantaabaan iskuulka Maarsamage ee maanta halkan ka hana qaaday maanta waxaan rajaynayaa marka anigoo soo gaabinaya waxbarashada maanta Maarsamage ka hana qaaday waxbarashada maanta Maarsamage xafladeeda lagu dhigay inaan mar dhow ka soo qayb galno dufcadii koobaad ee ka qalin jabinaysa iskuulka Maarsamage ka qalin jabinaysa inaan ka soo qayb galno ayaan rajaynayaa diilayraada macallimiinta maaragtay waxbarayda waa macallimaan maaragtay deegaanka ma ahna dadka koreeya maaragtay mushaaradkooda wax maaragtay naga tayageli ama naga qaabil aysan jirin waa wax maaragta markaan koor wixii la qabtay waxa la qabanaya deegaanka maaragta ku eg waxaanu markaan mar labaad ku celinaynaa dadku markii uu yahay dadweyne way isdhex yaalaan dad aad u daruufaysan oo siyaha kamida waxbarashada maaragta macallimiinta waxa kale oo intaas weheliya guriyaha hadda aan joogno aan ku jirno waa guriyo shakhsi maaragta nin uu leeyahay oo aan kira u joogno kira u deganahay wax badan aan markaan ku hor maaragto dhulkii maaragto waa diyaarsanay dhagaxii qayb kamida baan dhiganay fursada kale taa loo diido duruufta maaragta inaan dhisano ardada iskuulkani dhigata ma ahan kuwa ka soo toosa xaafadaha ku yaala tuulada ee sidoo kale waxay ka imaadaan dhul fog oo miyi ah si ay waxbarashada uga qayb qaataan
waana markii ugu horeysay xarun waxbarasho laga hirgeliyo deegaanka Maarsamage marka laga soo tago dugsi quraanyo hore ugu yaalay deegaanka. Cismaan Maxamed Axmed Cismaan Madaale, shabakada wararka Ceel Huur online, deegaanka Maarsamage.